galab wanaagsan saaxiibayaal sida u dhan tihiin meel kasta aad dunida ka joogtaan jimco wanaagsan fadlan haddii tahay daawashada kuuris janalka subscribe saaro si aad ula socoto shaxaha maalin kasta aan soo dhigno intaa kadib fadlan shaxda haddii kusoo gaarto daawo fiirso si aad ugu sameyso wax ka bedel meelaha is leedahay way ku fiican yihiin wax laga bedelo ama inaad sideeda ugu qanacdo intaas waa muhiim intaa kadib sidaa ka warqabtaan maanta ma jiraan ciyaarihii waaweyn ee dunida laga ciyaari jiray oo caanka ahay balse sida hore idinku sheegaba waxaa jira kumanaan ciyaaro kale oo dunida caalamka laga ciyaaro kuwaas ayaan kasoo dhexulanay ciyaarahan hadda idiin soo wadiyay qaarkood oo ah kuwa horyaalada aad taqaanaan laga ciyaaro intaba iskugu jiraan waxaan ugu horeeyay janta iyo kooxdan kaleeto janta iyo maxaan ku yiraahdaa kooxdan kaleeto waxaan leenahay Belgiumka ay ka ciyaartaa macnaha kooxan ay ka ciyaaraan janta ayaan guud ahaan ciyaartan caawa badinayso marka hadda adiga qabto in janta ay baraaji geli karto ama badi karto waa ujeedaa waa odds fiican waa 10 senti saaran waa ka dhigi kartaa Girona iyo Athletic Bilbao oo Girona aa ogtihiin tookadii horeeto masbuuci horeeto waxay qalqiil soo gelisay Real Madrid oo maxaan ku yiraahdaa hal iyo hal la soo gashay waliba Real oo haddaan khaldan gurigeed inay joogtaan jeclahay caawadan waxay u baxaysaa Athletic Bilbao marka Athletic Bilbao ayaa waxaa noo saaran double chance marka hadda aaminsantahay inay Girona badi karto $3 saaran Athletic hadda aaminsantahay inay badi kartana $2 saaran hadday kala badi karaan 34 senti saaran laakiin Athletic Bilbao ayaa double chance saaray waxaa kasoo xigto Torres iyo kooxdan kaleeto oo France League 1 ka qayb ka ah ciyaaraha caawa tan marka waxaan isticmaalaynaa waxaan leenahay total over ayaa leenahay 2 gool ayaa ka imaanaysa guud ahaan ciyaartani waxaa kusoo xigo kooxan mataqaanaan waa Armenia Premier League qayba meelahaas laga ciyaaraa waa Urarta iyo CSK Yerevan kooxda ku qoran tahay waa Armenia Premier League marka waxaa badin doonto caawa Arartu ayaa badi doonto sidaas ayaan usoo xulanay Varul Constantin kooxda ku qoran tahay iyo CSK Mayovini oo ujeedaan Romania League 1 idan qayb ka ah sidoo kale waxaan leenahay waxaan isticmaalnay waxaan dhahnay kooxdan Varul Constanta ku qoran tahay ayaa total 1 ka ah ayaa hal gool dhalinaysa ciyaarta guud ahaan way dhalinaysa wali 3 inay dhali kartaa la rajeynaa kooxdan kaleeto VV Maastricht ku qoran tahay iyo Helmond Sport ujeedaan marka iga qor caawa kooxda Maastricht ku qoran tahay ayaa horta badi doonto laakiin maadaama aan wixii guul aan ka rabno annaga double chance ayaa inoo saaran oo badis aan barajo waana Netherland ciyaaraha laga ciyaaro Anderlecht iyo Standard Liège kuwaan qoran tahay oo iyadana Belgiumka ciyaaraha laga ciyaar qayb ka ah iyadana kooxdan Anderlecht ayaa badi doonto hadaartada double chance waa ka dhigi kartaa haddaas leedahay cabsiga ka qabtid oo kale waan ka dhigi karnaa double chance waa ka dhigi laakiin hadda aniga way badinaysaa ayaa leeyahay ciyaartan way badinaysaa waxa kale ku sii xiga Borussia Mönchengladbach iyo VfB Stuttgart oo ujeedaan oo German Bundesliga caawa iyadana ciyaaraha qayb ka ah tani marka waxaan leenahay guud ahaan ciyaartani 2 gool ayaa ka imaanaysa sidoo kale waxaa kusoo xiga Udinese Calcio iyo Lecce kooxda ku qoran tahay Serie A ciyaaraha caawa qayb ka marka Udinese Calcio ayaa badinaysa haddaad aaminsantahay inay macnaha badi karna ay baraaji geli karto ujeedaa 19 senti saaran hadda aaminsantahay inay kala badi karaan 28 senti marka adiga waaye marka kooxdan kale ku soo xigto maxaa ku yiraahdaa ku qoranta mujida Fermat Amager iyo kooxdan kaleeto Fermat Amager kooxdan kaleeto oo awayga ah ayaa noo saaran double chance inkastoo iyada 90% ay badi karto maxaan ku yiraahdaa waxayna
ka tirsan yihiin waxay ka ciyaaraan Denmark divisionska. Marka sidoo kaleeto Kimchi iyo Orenburg sida ujeeda iyadana oo Russia Premier League iyadana qayb ka ah. waxaa leenahay ciyaaro caawa dhacaya 2 gool ayaa ka imaaneysa inkastoo Orenburg ay badineyso. sidoo kaleeto Bala Town iyo kooxdan kaleeto iyadana sidoo kale Bala Town badineyso 3-1 ay ku badin doontaa laakiin ama 3-1 ama 2 midkood laakiin anaga 2 gool bis ayaa ka rabnaa inay ka timaado. sidoo kaleeto meeshan maadaama kulankan Girona iyo Athletic Bilbao uu kulan xiiso leh uu yahay dhanka Spanish Liga caawa marka waxaan ku darsanay inay 3 jaalana ciyaarta guud ahaan ay ka imaan karto. marka guud ahaan shaxdeena halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa. koodkiina waa kaasaa. fadlan daawo fiirso inaad daawad xikaa saacideysaa inaad ciyaarahana wax ka fahamto sidoo kalena shaxda wax ka fahamto sidoo kalena wax aad ka bedelato waxna aad ku darsato. marka waa mahadsantiin waa koodkan waa kaasaa. have a good day.